بسم الله الرحمن الرحيم عشركeenni maanta wuxuu ahaa doonaa waxaan sharaxi doonaa multimeterkana ugu horey doona aan sharaxi doonaa waxaan ku xiji doonaa ninkan way isku mid yihiin kan ay waxna kala duwanayn oo isku mid yihiin saddexdaba iyo kaas oo xoogaa yar ka duwan marka aan u gadagalnahay marka waqti badan ayaan ku dhuminin soo waa ujeedaa kan waxaa isticmaali karta halkan AC voltage markaad haddana tan kale mujeedaa meeqa duleeloo qabaa 4 duleeloo qabaa kan sidoo kale 4 duleeloo qabaa kanna wuxuu qabaa 4 duleel soo qaarkood si fiican ay kugu sharaxayaan especially kan si fiican uu kugu sharaxaa kulligoodna waa isku wada mid haddaad u fiirsatid ood mujeedaa kan AC waaye halkaan markaad geysid DC aad ku isticmaalaysaa halkaan markaad geysid waa maxaa ohmkaad yacni ku cabiraysaa ohmka si ugu cabiraysaa waxaa isticmaalaysaa kan iyo kan mar kastaba kan iyo kan ayaa ohmka ku isticmaalaysaa xerigga inuu kugu jiro waay markaa kan iyo kan ayaa xerigga gashanaysaa markaasaa ohmka isticmaalaysaa haddaad calaamadan halkaana ka sii arag calaamadan haddaad arki kartid ujeedaa calaamadaas waxay kuu sheegaysaa ohmka marka waxaa karantig mujeeda soo qaaliyey uu diidan yahay sababtoo meel qaladaa ku jirto oo ku dhowyaa meel god qaladaa ku jirtaa marka godkaas waa inaad ka soo bixisaa aad godkaan gelisaa oo aamusaa ma fahamta sababtoo ee markaa aamka ama imperka aad cabiraysid godkaas uu kugu amraa inaad gelisid waa very smart soo kan wuxuu ku leeyahay mujeedaa hadda ma ahan milliam waa maxaa way milliam waaye wuxuu ku dhaha godka milliam geli ha gelinin godka oo yacni aamka aamka muxuu ka wadaa aamka iyo milliamka waa isku mid laakiinse milliamka aada u yar yahay halkan uu kugu qoraa haddaad u fiirsatid marka multimeterkan aad u wanaagsan yahay soo maxaa kaloo isticmaali kartaa yacni microamkana waa milliamku ka sii yar yahay soo halkaanaas gashanaysaa marka haddaad rabtid inaad isticmaashid temperatureka saasaa u isticmaalaysaa temperatureka saasaa u isticmaalaysaa halkaanaa dhiganaysaa bahal la geliyaa jirto halkaan iyo halkaanaa gelinaysaa haddaad temperatureka wuxuu leeyahay mujeeda Fahrenheit iyo Celsius calaamadiisa labaduba waa isticmaali kartaa soo kuu sheegaa soo HFE waa formula laakiinse wuxuu kuu sheegaa gainka basically gain waay gainka ka hadlooyaa transistorka oo electronic part markaad ka shaqaynaysa transistor wax la lahaa jirto saddexdan baashaan mujeedin haddaad u fiirsatid bahalkan transistorkan markaad rabtid inaad cabirtid ayaad halkaanaad gelinaysaa wuxuu kuu sheegaa inuu yahay MPN ama inuu yahay sugan hadda gainkiisa meeqa waa sugan ka bixiya gainkiisa inaad ogaatid haddaad rabtid kanaa gelinaysaa ku shaqaynaya so transistorkan inaad ogaatid haddaad rabtid inuu PN yahay ama MP yahay
oo gainka aad rabtid inaad ogaatid maxaa kan halkaan aad gelinaysaa kan hadda ma shaqey wuu shaqeynaa yep wuu gaaban yahay no ha 121 waaye gainkiisa so kan muxuu kuu sheegaa inuu np n yahay gainkiisana oo yahay 121 so saasaad ku ogaanaysaa markaad isticmaalaysid kaas waxaa ku haray frequency kasta waa cabiri kartaa frequency-ga ama hertz oo kugu siinaa frequency mujeda hertz unitka I don't know inaad arki kartiin ha raala ahaada marka hertziga saas oo kugu siinaa haddaa capacity cabiri rabtina capacityga waa kaasaha nano oo kugu siinaa kan ugu yar waaye marka ujeedaa markasta calaamadan halkaasaa ku aadi marka badanaa dadka waxay isticmaalaan saddexdaanay isticmaalaan ay u badan yihiin so aan tagna markaad guri aad joogtida korontada cabiri rabtid waxaa isticmaalaysaa AC markaa isticmaashid meesha wuxuu ku dhaawaa AC halkan waxaad cabiraysaa voltage-kana kuu soo qoraa marka voltage inaad cabirtid haddaad rabtid labada halkaanaad ku dhejinaysaa waxaad ku dhejinaysaa mujeda nal yaroo soo shiday kan iyo waxaad ku dhejinaysaa kama ka bacdi aad cabiraysaa so basically kan saasaa loo isticmaalaa tan kale haddaad technician tahay badanaa aad wax cabiraysidna badanaa waxaad ku cabiraysaa yacni ohmka leenka inuu go-an yahay leenkaas inuu akhrinayo from one point to other point aad fiiri rabtid ohmka badanaa dadka isticmaalaan ohmkaasna marmar waxay u yeeraan dhawaaq uu qaalinaa markuu wixii isku dhegan yahay waxaan ula jeedaa hadday laba fiil isku dhegan tahay labada fiil oo kuu sheega demonstration yaraa samaynaa marka meeshaas aan ka sii wadaynaa ilaa haddoo yidhaahdo aan samaynaynaa tusaale yar oo sida loo cabiro so aan dhaho labadan fiilo way isku dhegana hadday isku dhegan yihiin dhacaan siiyey dhawaaqi ma tusinayo right wax ma dhawaaqayo waxna ma dhahayo so haddaan isku dhejiyo aan dhaho isku dheji fiiladan then waxaan ka cabiraa marka inta iyo inta waa kaasa wuxuu sheegaa inay isku dhegan yihiin oo sheegaa basically intaas waa haddaan rabo ohmka inaan resistor cabiro resistorka waa kanaha meesha resistorkaan geystay intuu resistorka yahay ayuu ii sheegi doonaa ilaa haddoo yidhaahda ha 2,000 waaye yada 2,000 waaye waxaan rabaa inaan cabiro capacity ama capacitor inaan cabiro rabaa so capacitor ka cabira meesha capacity-gaan geysana calaamadeedii capacity-gaa geysana waa kaasaa wuxuu idhahaa waa 1.08 ama waa maxaa hal micro Fahrenheit ama micro capacity so haddaan fiirinana haddaan akrinana exactly 1
microfarad ujeedaa so capacityga badanaa waa noocaas haddaan rabno inaan diet aan cabirno isagana sidoo kale waa ku qaban dietkaan geysanaynaa calaamaddaas markay noo soo baxdo ayaan dietka cabiraynaa calaamaddaas inay kuu soo saarto kanaad push garaynaysaa waa cabiraysaa so mujeedaa hadda saa u qabtay qalad inay tahay yaa sababtoo kan dhankan waa positivena inta ma maro so that is why inaad sida kale u isticmaashid waaye halkaan oo maraa intuu istaaga currentiga so 508 saasaan aad u cabiraysaa currentiga iyo resistanka iyo capacitygaba yaa fuse haddaa rabtid inaad cabirtid oo fuse camal fusekan inaad cabirtid markasta waxaa saaranaysaa halkan laakiin dhawaaqa saaro waxaad dareemaysaa inuu guban yahay in kale waa ka soo saari kartaa isaga so khiyaarta cashirkan inkasta oo dheer yahay laakiinse waxaan ku ekeeyay hadda kanaan ku ekeeyay sidaan u cabiri lahayn waxyaabaha kala duwan oo aan dhehayno dietka resistorka iyo waxa la midka ah kheyr aan rajeynaa